السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا waxaan rabaa inaan tacliiq aan ka bixiyo clip isoo gaaray whatsapp-ka iga soo gaaray oo maaragtay nin ilaahay xaalkiisa og yahay uu hadlayo. ninkaas waa ka hadla haddaan iraahdo runtii waxaan ka baqaa maaragtay inaan ku dambaabo. nin ilaahay maaragtay xaalkiisa og yahay waaye. wuxuu marka tacliiqinaya hadal ay meel shir ah ka jeediyeen wiilal banaadir ah. inuu isku dayo inuu afgambiyo ma joogno 1969 ma joogno waxaan joognaa 2021 intaanuna waa furan yihiin mana aqbalayno afgambi ma aqbalayno. waxaan taageersanahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaare madaxweynihii hore waxaan isleeyahay dadka fashiliyey waa annaga oo kitaabadooda inta la soo kala baxay dhahnay ilaahay oo meeladii kaa sarayso oo u dacwoona ma jirtee ninka dalkan dulmiga kuwa ilaahu fashili waana fashilmay waa aragtaa. adigana waxaa kaa rajaynaynaa inaadan xaqdaro samayn waxa aan ku taageerayno oo ah inaad cadaaladda dadkaan u samaysid inaad noo samaysid. hadda waxaa maaragtay ii sheeg madashiyaa dib u furtay oo wadatashiga qaranka waa in laba aragti aan qabaa. labadaas aragti oo kale ah in horta haddii uu wax maqlaayo madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo aad go-aan ku gaartaan inaad la hadashaan oo aad tirahdaan filla soomaaliya ka soo bax waktigaa waa dhammaaday musharaxiinta kale la mid noqo. iyo tallaabada xigta oo ah sidii maaragtay ii sheeg guddigii khilaafaadka aad u kala dirtay iyagoo maaragtay kursi baadila xalaaleeyay darteed inaad guddiyada kaleeto oo ay ka mid yihiin guddiga doorashooyinka banaadirigana aad u kala dirto guddi cadaalad oo lagu kalsoonaan karo aad u keento. marka wiilal banaadiri ayaa janis fursad ay heleen maaragtay ay meeshaas ay war kaga soo jeediyaan mowqifkooda ay caddeeyeen. mowqifkoodii waxay ku weerareen madaxweyne farmaajo ku weerareen. laakiin kanoo kale iska jiro waa soo booday. wuxuu kasoo hadlay maaragtay facebook oo kasoo hadlay cod clip oo duubay nin kale uu yeeraa wuxuu leeyahay maaragtay adiga media leh adiga kan adiga kaas soo hadal. ninkaas muxuu kasoo hadlaa yacni wiilashan weerarkii ay weerareen madaxweyne farmaajo in dusha laga saaro xildhibaanada banaadiriga kulligood. sababtana marka maxaa dusha looga saarayo nin kale oo asaga aan ka liidan oo asaga noociisa oo kale inta oo safiih ya in marmarsiyo loo sameeyaa la rabaa wax kale inta maaha. waa dad aan isdhaamin waxba aan isdhaamin. aniga wiilashan si hoos ula hadlay. aniga laftigii markaan clipkaas arkay oo videogaas aan arkay ayagoo hadlayo si hoosaan ula hadlay. mowqifkeygana waa uu caddeeyey. weerar iska qaaban uu ahaa ka fiirsasha ma lahayn. maaragtay wuxuu u ekaa weerar oo dad attentionkooda lagu soo jeedinayo u ekaa. arrinta markay saas ay tahayna maaragtay runtii ani waxaan is dhihi karaa qofka hadlaya daacad kama baaba hadalkaas. laakiin taasoo kalenta very dangerous way in maaragtay dhallinyaradaasna waxyaalahaasoo kale lagu qanciya ma ahin runtaa fiican because waxa xikmad kuma maaragtay wax xikmad ku dhisan ma ah. qof dhan mas'uul oo dowladeed xataa haddaa maaragtay mucaarad ah ku tahay aad kasoo horjeedid waxyaalo kale maaragtay oo la isticmaali karaa jira. marka calaa kulli xaal at least aniga hadalkii waxaa ka mid ahaa in maaragtay ay ixtiraamaan. sababta waxa waaye bulshada banaadiriga aqlabkiis ya intiisa badan gaalibka sida madaxweyne farmaajo taageersan yihiin at least ugu yaraan cala aqal inay maaragtay ku ixtiraamaan dadkaas bulshadaas banaadiriga. sababtoo ah weerar noocaas oo kaleente anaga nalaguma mateli karo. banaadiri haddii ana nalaguma mateli karo runtaa fiican wax xikmad ku dhisan maaha. laakiin safiihan oo kaleente ciyaal suuqan oo kaleente oo inkaaran hadalkaas ka faa'iideysana
markaas wuxuu ka dhigaa anaka dhan wuxuu naga dhigaa inaan hadalkaas aan maaragtay hal mowqif aan ka taagannahay oo kulligeen aan isla qabno ka dhigaa laakiin anaka oo dhan banaadiri haddii aan nahay saas ma nihi banaadiri aqlabka nabad iyo nolol ay ku qanacsan yihiin nabad iyo nolol ay raacsan yihiin xildhibaano badanaana ka mid ah dhowr xildhibaan oo xildhibaanada banaadiriga ka mid ah ayaa maaragtay nabad iyo nolol taabacsan oo maaragtay raacsan kuna qanacsan taas in la khirtay ahayd ma fahamti laakiin halhala loo magacaabay hebeley hebelow hebeley hebelow kulligood yacni hadalkii wiilashan ay ku hadleen ayaa waxaa laga dhigaa inay kulligood hal mowqif ay ka taagnaayeen camal ninka saas u hadlaayo oo maaragtay dadka saas u maran habaabinayo asigaa maran habaabsan ya ninkaas cudurdaar ma laha haddaba way maqloosin banaadiri ninkaas wax cudurdaara uu leeyahay ma jirto marka waxa weeye ninka asaga marmarsiyada uu sameynayo ninkii maalin hore maaragtay asaga isfashilay waay asagoo telefonku hadlaya cod sira laga soo duubay muxuu yidhi yaa khay iska dheh farmaajo waa taageersanaha iska dheh mucaaradkana maaragtay adigoo ka ag dhow iyo meelahaas yaan lagu arkin mar ana garabkaagaan ahay halan kaa codsanaa yaanan dhinacyada mucaaradka firi hadba meeshii oo annaga awl waxaa nalaga aqal badan jiray dowladda jirtaan macaarudi jirna mogtahay hadda dowladda mushaaraan ka qaadanaa nabadii nololaan nahay ayagaan taageersannahay madaxweynaha farmaajo aaminsannahay hadna saas noqo ha noqonin in meel lagaa ararka kale oo lagaa shakiyo waxaa waaye mabda-aada ha noqdo farmaajaan annaga rabnaa la iska taagnaaw waxaa waaye dheh ninkan farmaajo wuxuu raadinayaa qof uu ushiisa u dhiibto dadkan kale ushooda ciduu u dhiibanaya male ciduu wax ku aqaan ninkaasoo raba excuse inuu sameeyo ninkaasoo raba marmarsiyo inuu sameeyo ninkaasoo raba inuu dhaho maxaa la dhahaa nabadii nolol inuu dhaho rabaa kilibkaas waa la hayaa yacni aniga nabad iyo nololaan ahay iyo madaxweynahan taageersanahayo inay been ay tahay oo lagu qaraabanayo waa iska cadde asagana afkiis ka caddeeyey see kaas camal adiga excuse a ugu sameeyay safiih oo asaga camalaa tahay oo munaafiq ah oo maaragtay cirka laga soo tuuray inkaaran wax cudurdaar aada leedahayna ma jirto arrinta guddiga doorashooyinka asagoo ka hadlayan arkay arrinta oo guddiga doorashooyinka asagoo ka hadlayan arkay wuxuu ku leeyahay guddiga doorashooyinka weli doorasho ma qabanin see ku ogaan kartiin inay maaragtay dad oo khaldan dad xun inay yihiin anaka runtaa fiican guddigaas waa aragnay waxay soo wadaan waa sheegi karnaa waana aragnay bursamayntayna tuseen bursameyntu ya anaka guddigaas ma ka sugayno inay doorashadeena naga haleeyaan doorashadeena inay naga haleeyaan ma sugayno hadda goor intay tahay inaan ka hortagnaa inaan ka hadalana ma joojinayno ma ka aamusayno sababto waxa way hadhowda anaka shalaay iyo hoog ma rabno labadoodba guddoomiyaha koowaad iyo guddoomiyaha labaad mid walba wuxuu wataa qof oo familkiisa oo wataa oo murashax ah labadaas murashaxne mid ka mid ah wuxuu isku soo xayeysiinaa HOP number hope number isku soo xayeysiinaa oo qabiil kale ay iska leeyihiin shuruudaha murashaxnimana ma soo buuxin karo arrintaas ka waranbe guddigaas excuse ma u samayn kartaa
guddigaas marmarsiin ma u samayn kartaa guddigaas oo aad dhehaysid guri kastay tageen sawirada xataa laga soo qaaday waa aragnay ها guri kastay tageen sax way laakiin ma tagin guryaha xildhibaanada ama qabaa'isha kuraasta ku astaysan guriyahooda ma tagin inay kala hadlaan doorashooyinkiina sidee ugu wanaagsan ay idinku qabsanaa waxay ay tageen qabaa'il kale ay u tageen ay shiro la yeesheen ay kulamo la yeesheen ayagoo ka dhaadhicinayo kuraastan lambare keliya ku qoran qabiil kuma qorno way daha furan tahay tartag waa kasoo qaybgeli kartiin kaas macnihiisa maxaa waay wax keena waay guddigaas waa ujeednaa waxay samey weyn guddigaas waa ujeednaa waxay samey weyn waxay soo wadaan waa ujeednaa ka waran bakaas أهبل كيس كان عذر دار مله كان مارتي هذا عذر دار مله هذا السفيه عذر دار مله رد هذه الشيء مركا ما له وربعين تغيرتين كل جيل مرقات وقتين وربعين تبحكليهن مدحوينها يا رئيس الوزراء هشيسيننا waxay ka hadlayaan heshiisiin ayaka maskaxdooda ka weyn dadkaas ma heshiisiin u samaysan dadkaas ma heshiisiin yani wax heshiisiin la yiraahdo samayn kara oo yaqaano si wax loo heshiisiinayo dad loogu bartay kaliya inay wax dumiyaan kulan ay maanta Muqdisho isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beelaha Banaadir ayay uga hadleen xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan khilaafka siyaasiga ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble